waxa had iyo jeer lagu murmaa iskuulkan barwaaqo iyo jaamacadiisa dad badan oo ama aan fahamsanayn ama jibadooda aan darsin waxa ka socda ama u cadawa islaamka ayaa waxay ka fidiyaan warar aanay hubin waxa ay yihiin taasi waxay u kaliftay inaan tago dugsiga Abaarso oo shaqaynaya anigoo kaligeeya oon ciidana la socon oo gaaro yar wata si aan u ogaado waxa ka socda waxaana soo taabtay in iskuulkaasi ay ka socdaan wax qarankeenu u baahan yahay islaamku u baahan yahay islaamkuna u baahan yahay waxaan ku bilaabayaa baarista uu sameeyay madaxweynuhu waxa uu sheegay kadib markii uu maqlay hadalhaynta ama uu arkay hadalhaynta ka jirta dugsiga Abaarso ayaa waxa uu sheegay inuu lugihiisa ku tagay keligii si uu soo ogaado waxa halka ka socda waxaanu sheegay inay u soo baxday natiijo ah in halkaasi ay tahay meel wanaagsan oo lagu hayo wax u dana ummadda iyo islaamkaba natiijadaas uga soo baxday haddaba natiijada uga soo baxday waxa ama baarista lafteeda ayaa waxa aynu ama aan iska weydiinaynaa madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanaya tusaale ahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban bad ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas muddada yare kooban muxuu ku ogaan karaa muxuu xog ku ogaan karaa waxa la sheegay ee tirada badan sidee buu ku ogaan karaa muddada kooban taas waa taas qodobka labaadna waxa laga sheegay dugsigu de ma aha wax la taaban karo oo saa loo gacanta loogu taaban karo ama la arki karo badankoodu oo ma aha inuu hadduu meesha ugu tago wixii la sheegay inuu arkayo sidii maxaa khamri xashiishad dad wax leynaya hub saas ma meesha waxa lagu hayaaba waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudinaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa marka yani ugu badnaan saacad saa lagu ogaan karaa teeda laba marka loo yimaado maxay ku sheegayaan maxay ku sheegi lahaayeen ay kaaga warrami lahaayeen wixii lagu eedanayay may ku sheegayaan taban de waxa weeye jawaabtu waxa weeye waa maya haddii uu madaxweynuhu uu doonayo inuu xogta ogaado sida uu sheegay waxay ahayd inuu guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay loo saaro oo ummaddu ay raalli ku tahay oo ay culimmaduna kow ka yihiin guddida xubna ka yihiin iyaga loo soo ogaan lahaa iyaga ummadda u sheegi lahaa iyagaana ku soo noqon lahaa madaxweynaha oo u sheegi lahaa waxa halka ka jira Jonathan iyo ciddii iskuulkan abaamushay abaal weyn bay Soomaalidu haysta waanu u mahadnaqaynaa 280 in ka badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayuu jaamacadaha adduunka ugu badan u diray oo ay ku baxday lacag ka badan 30 milyan oo inaan intaalka dowladweynaha hayn ayuu carruurta ugu soo baray waan uga mahadnaqay qarankuna u mahadnaqay qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yani la dhacsanaa arin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dabadda loo diray oo ku dhow 300 oo arday oo ka baxay dugsiga Abaarso oo lagu maalgeliyay in ka badan 30 milyan oo dollar oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyay waaye kaba soo qaad baa lacag baa lagu maalgeliyay tira badan lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeedo bixisay ujeedo maxay ay ka lahaayeen ujeedo ma laha miya yani waxa weeye ma jacaylayna jecel yihiin bay ay maxaa dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardaydeena wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl ba miyay naga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka yani maxaa igu yimi halkan dhulkan ujeedadiis waa maxay طبعا ujeedu leeyahay ujeedada uu leeyahayna halkan aanu ka sheegaynaa ujeedadoodu waxa weeye inay soo saaraan dad iyaga la mid ah la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore
si ay ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan dad iyaga ah oo muwaaliin u ah oo u daacada oo ay tababareen sanawaad badan tababareen ay doonayaan soo saaraan waxay doonayaan oo yani waxay ugu yeedhan hal door iyo labeentii bulshada dadkii horkacayay hogaankii horkacayay bay doonayaan sameeyaan oo siyaasad ahaan horkacaya waxbarasho ahaan horkacaya caafimaad ahaan qaybtii dumarka qaybtii dhalinyarada manaaxil xayaa dhinacyada nolosha oo dhan waxay doonayaan inay noo soo saaraan dadyow inala magaca inala midab inala dal laakiin maskaxdu aanay maskaxdeennii ahayn qalbiguna aanu qalbigeennii ahayn dhaatada iyo macluumaadka iyo fikirka iyo ideolojiyada ku jirta aanay teennii ahayn aynu rabnay ay tahay ninka samaystay dhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu doonayo ayay doonayaan inoo soo saaraan teeda labaad nin si cad u doonaya inuu soo saaro hogaamiyeyaal sidee baan ugu ogolaanay dalkeenna inuu qaabkan oo kale uga shaqeeyo oo u soo saaro hogaamiyaha yay sameynaya aniga hogaamiyaha yay sameynaya ma nin gaala aniga hogaamiye wanaagsan ii sameynaya ma nin aan kala diinnahay ayaa hogaamiye wanaagsan ii sameynaya wuxuu ii sameynayaa mid la aragtiya buu sameynayaa mid muxuu ahaayay la fikra buu sameynayaa mid aniga muxuu ahaayay muuqaal ahaan iyag laakiin aan yani waxa aan doonayo aan doonayn buu muxuu ahaayay soo saaraya walaalow waxaad aragto soo gaarsii ciidanka aynu ka wada aragno laakiin qof aan meel ka matelin oon cidna ka warakin oo laga yaabo maskaxeena aan miir qabinba intuu facebooka soo galo wuxuu doonay inuu ahdo abaarsa dadka lagu gaalaynayaa hableeba meel fogamiye la geeyey inuu waxa akhriyaa war hablahana nabadooda waa la ilaalinayaa dadkana diinta waa la barayaa iskuuladana waa la korinayaa xarumaha waxbarashadu ee ay fartu ku godan tahay iyo xarumaha dhaqanka ee ay fartu ku godan tahay xarumahaasi waxay keeneen waa inuu runta isu sheegnaa yani waxa weeye wax la dhaco maaha wax la ammaanana maaha wax laga qajilo weeye wax laga xishoodo weeye in maanta kuwaa lala safto dadkaasi waxay keeneen bulshada ugu guracan adduunka bulshada aan samayn xitaa waxa uu sameeyo xayawaanku waxay keeneen labka wax ka daya ama hungureeya iyo dhadiga wax ka daya ama hungureeya dadka noocaasa bay inoo keeneen dadkeennii bay ku sii dhex daayeen oo ay uga dhigeen tusaale wanaagsan intaasaa ku fillayd oo ay ahayd madaxweynuhuna inuu xisaabta ku darsado intaasaa ku fillayd inay tahay meeshaasi meelo aan khayr lahayn meelo aan wanaag soo wadin meelo aan wax ummadda islaamka iyo muslimiinta u dana aan lagu hayn maanta ninka hindiga zakar ilaa maragteen ee xafridaha qabta ee finda ku hadla ingiriiska ku hadla boqolaal kuwaasaynu soo saari lahayn ofkaa yaqaano oo diinteenna fidiya dalkeenna hor u qaada waxna barta maxay naga xanibtaasi in dadkeenna aqoontii adduunku ee cilmiga sayniska aanu ka gabanno sheekh Makerere University ayaa la keenay markii hore waa lagu horjoogsaday waana la gaaleynaya carruurteeda ma ogolin imikana carruurteena iyagoo kabara oon baasaboor haysan oo waxba haysan ayaa dirqiya rasuulullah ay dhahaan Soomaali waa naha nolol ogolaado oo baray ku galaan Makerere University ma doonayo inaan jaarisa lumiyo ma doonayo jaarisa ay kaas inay lumaan xarumahaas baas ee isugu jira waxbarashada iyo dhaqanka waxa ka digay oo ummadda uga digay xumaantooda iyo dhibta ay leeyihiin culimadii baa ka digtay gudidii wanaag farista ka digtay wax garadkii baa ka digay intuba way ka digeen oo meeshaas maxay dawladana way kula dardaarmeen ummadda ka qabta aragtida guud ee bulshadana hadii la soo hadal qaado meelahaas intooda badan waa diidan adduunka waa laga tagayaa adduunkan waa laga tagayaa fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu ka dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay yani muxuu ahay maanta qof ka talin kara oo go'aamin kara oo diidi kara gaaladu waxay doonayso oo ilaahay raali gelin kara marka maanta fursad baad haysataa war ummadan diinta islaamka ku dhaq war wixii diinta islaamka la dagaalamaya ummadan ka qabo war la garan maayo goorta uu geeridu imanaysa way soo dhawaatay inuu soo wada dhawaatay khaatimo wanaagsan adduunka aynu kaga tagno waliba madaxweynuhu khaatimo wanaagsan kaga tago ummadan khayr kaga tago la garan maayo inta la sii noolaanayo rabbiga la kulan adoo ummadii islaamka kaga tagay laakiin ha kaga tagin adigoo maxaa siinaya garab maxaa xarumaha noocaasa